السلام عليكم soo dhawaada fadlan hadaa igu cusubtaa subscribe saar videoga like garay ra'ayada qabtid comment igu soo qor maanta waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo xalwad kismaayo 1 kiilo ah sida u sameyn lahayd insha Allah waxaan rajeynayaa inaad iga baran doontid hadaa taqaanidna walaalkaaga garanaynin u sii share garay halkan waxa yaala alaabta ka samaysan lahaa 4 bakeeri oo sokor ah sidoo kale 4 bakeeri oo biyo ah sidoo kale bakeeri caleen aan soo karkariyay sidoo kale waxa ii taalo saliid yar iyo bakeeri subag ah sidoo kale waxa ii yaalo warango heel shiidan iyo food color ama saffron sa u taqaanid inta oo isku dardarsan doona sida isku dardarsanay waa idin tusi doona insha Allah qiyaasta indiina ka qaata la socda digsi ayaa dabka soo saaray waxaan ku soo shubayaa 4 bakeeri oo bakeeriga u jeedaan oo biyo ah bakeeriga koowaad ayaan hadda ku shubay kii labaad ayaan sidoo kale hadana ku soo shubay bakeeriga saddexaad oo biyo ah ayaan ku soo shubay digsiga hadda bakeeriga afraad ayaan ku soo shubay halkaas waxa ku haysanaa 4 bakeeri ah oo biyo ah sidoo kale waxa u baahan tahay 4 bakeeri oo sokor ah bakeeriga koowaad ayaan isticmaalnay hadaan ku shubana digsiga biyaha noogu jira bakeeriga labaad ayaan hadana ku soo shubtay haatan waxa ku soo darsaday bakeeriga saddexaad kii afraadna waa ku soo darsaday waa ka soo jeedaan marka 4 bakeeri sokor iyo 4 bakeeri biyo halkaas ku haysataa sida ognahay xalwada marka karinaysid waxa lagu kariyaa caleenta waa inaad gooni u soo karsatid digsi aan biyo ku soo shubay kadibna caleenta shaaha lagu kariyo ayaan ku shubay dabka ayaan saaray kadib caleentas markay karkarto si fiican u karkarto bakeeri ayaan ku miiranayaa hal bakeeri oo buuxo bakeeriga shaaha lagu cabo ayaa la rabaa inay caleentas ku noqoto kadib markay sidaas ku noqotana waxaad ku qasan doontaa warangada iyo food colorka ama saffronka saa u taqaanaan waa kasada bakeeriga buuxo waxaan ku soo dardarsaday warangadii hadana waa isku qasayaa taas waxa rajeynayaa inaad fahanteen dadka qaar waxay isleeyihiin caleenta la karkarinayo xalwada lagu daraayo maxay u tartaa waxay u tartaa xalwadu waxay ka dhigaysaa kalar fiican ee siinaysaa kalar mugdi hadaad rabin waa ka dhaafi kartaa sidoo kale dadka qaarkood ma yaqaanaan warangada balse warangada waa kana af English waxa lagu dhahaa corn flour marka waa ka sawirka qaatay insha Allah sida u jeedin biyihii sokorta iyo dabka saaranay hadda way soo kululaadeen hadda waxa ku soo shubtay warangadii iyo saffrankii aan soo qasanay daaya u jeedeen aan ku soo darsaday qaadada in laga daayo lama rabo walaaqa oo ku wadeena insha Allah waan walaaqayaa inta aan ku daraayo mise wax walba aan u isticmaalayo waa idin tusi doonaa asxaabay xoogaa kadib isku soo laabaneena guys sida u jeedin wili waan walaaqayaa lama rabo inaa walaaqitaanka ka deysid mideeda kale kulli idin ma wada tusi karo bilow ilaa dhamaad because waqti badan ay qaadanaysaa adiga 40 minutes meelahaas ay qaadanaysaa intaas dhan idin ma tusi kari waa inaa xoogaha markay soo karkarto ba idin soo noqdo idin soo duubo soo jeedin wili wax saliid kuma darin waxna kuma darin adeerta waxa ku soo darsanaya saliid because xoogaha markay ka adkaato waxa la rabaa inaad saliid ku socodsiisid mise wax yar oo saliid ah ku dartid si ay kuugu dhaqaaqdo mise ay kuugu jilcido si walaaqitaanka markaas way ku sahlanaan waan isku soo laabaneena sida u jeedin asxaabay waa kadana isku soo laabanay way culustahay hadda lama walaaqi karo haddana wax yar oo saliid ah ku darsaday walaaladii saliid badan ma isticmaalin bakeeriga shaaha lagu cabo haafkiisa ayaan si kala baray haafa laba u qaybiyay qayb kamid ayaan xalwada ku darsaday haddana subag ayaa ku soo darsaday subagaan isticmaalana waa only half bas half kali ayaan isticmaalay half subag ah iyo half kiis oo saliida ku hormariya kadibna subaga gadaal kaga daray insha Allah ila socda haddana wili waa walaaqayaa kow mid joogto ma dhawo faan oo la fari kama qodna wax yar oo heel ku soo daray heel shiidan wili waa walaaqayaa hadeerto waxay u egtahay inay soo dhadhowdahay kowna ma joogto laakiin xoogaha sida hore way dhaantaa haddana walaaq waa ku soo wadeena ma ka joojineyno xoogaha marka idin duubo waa idin ku soo noqonayaa hadda soo jeedin waa kana saliida soo tuftay hadday saliida hore ka soo tuftay guys asdheena bahasha diyaar ma aha wili saliidi laakiin dib ku igu soo celisay sida u jeedaan balse faan oo la fari kama qodna oo wili waxba u dhiman asxaabay adeerta saliidaas kor ka soo fuushay ayaan wax yar ka soo dhurayaa
maadaama hadda saliid aanan u baahnayn soo diyaar garoobayso balse sidii la rabo ma ahan. sida ku fahmi karto baash inay diyaar tahayna waa ku tusi doonaa. Gacalka iska boobin hadda xoogaha saliid kor soo martaa ka qaadaya balse weli saliid si fiican uma soo tufin. sida u jeedaan hadda waxaan ku soo darsaday sisin yar. haddaad doontid loos ku bedelan kartaa, haddaad doontidna waxba ma ku darsan kartid, adiga iskale dooqa. weli kuma joogto asxaabaysa u jeedin. dadka qaar saliidda markay soo tufto hore kala boodaan waxay leeyihiin diyaar waa hadhowdina hadhaa ku qasaarna bahasha. marka waqti inaad siisid waa adiga 40 minutes meelahaas ku kartaa bahashan. dabkeedana ugu roonaysi oo dab xun oo dhintaan ku karinine. dab fiican aa loogu talagalay inaad ku karisid. weli kuma joogto saa u jeedaan waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabay sida u jeedin hadda waa isku soo laabanay. weli waan walaaqaynaa saa u jeedin. faanoole fari kama qodno waa sheekada. balse hadda sidii hore oo dhan way dhaantaa oo hadda wax yar ay noo dhiman kow laba ma fahanteen. marka xoogaa kadib diyaar ay soo noqonay oo isku soo noqonayna markii diyaar noqoto. guys sida u jeedaan hadda diyaar ay soo noqotay maasha Allah wax badan juhdi waa soo gelinay. alxamdulillah haddana miraheedii aa guranaynaa soo ma aha miraheeni aa guranaynaa. marka dadka bilowga waxaan tusinayaa si ay ku fahmi karaan inay diyaar tahay. markay saliidda soo tufto waa inaa cabaar sugtid ilaa sidaan iskugu duubmayso. hadda sida u jeedaan way duubmaysaa ayada dhan way israacaysaa ma kala harayso ma kala fuqayso isku dhagan tahay. walaalahay saxna saliid soo marsaday kadibna waan ku soo gadiyay. indhihiina macallin idin lagama sheekeyn karo wax araga deeqa uurkuna deeqa ma fahanteen. soo dhawaada meel ka soo joogtiin. SG ayaan ku soo qoray waxaana ka soo gaabiyay Samsam Gadac. waa mahadsantihiin daawashadiina. saliididan hadda ayada dhinac haddii marka hore aad ka soo gurin xataa markii dambe sida u jeedaan saliididan ayada dhinac u baxayso kadib waa ka miiraysaa. waa mahadsantihiin meel kastoo joogtiin. please waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan, videoga like gareysaan, share gareysaan. salaamu calaykum.